السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنا دين سلام يا خيارة قيمها يقدرين تمضن مeel kastoo kala socotaan channel-kan markasta kala socotaan muuqaalada magaalada Hargeysa iyo guud ahaan dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan kulba waxyaabaha muhiimka ah ee horumarka ee dhanka wanaagsan ee ka socda. muuqaaladan aan idin soo duubay waxa weeye laba meelood oo kala duwan waa suuqa iyo xaafadda Maxamuud Haybe. halkan aynu hadda ka bilownay waa xaafadda Maxamuud Haybe waa degmada Maxamuud Haybe gaar ahaan goobta loo yaqaan gacanta ayayna hadda dul maraynay oo aynu wax yar soo dhaafnay. gacantu waxay ku taalaa xaafadda yar ee loo yaqaan kaalinta 8aad oo ah kaalin ba kool jirtay berigii hore sababtaas oo lagu bixiyay kaalinta 8aad. isla halkani hadda aynu dul maraynaa waxa weeye isla xaafadii kaalinta 8aad gaar ahaan garoonkani waxa uu ku dhex yaalaa dugsiga Maxamuud Axmed Cali buu ku yaalaa. xaafadda dhankan ka soo muuqata waa xaafadii Quraacdheer iyo xaafadda Xidigta loo yaqaano. baabuurta halkaas soo yaala waxa weeye waa meeshu waa geerash weeye dhirta faraha badan ay ka baxday. dhanka hadda aynu u sii jeesanay waa dhankii galbeedka xaafadda wata cadceedu soo hayso guryuhu soo dhalaalayaan. muuqaalka xilligan aan dubay waxa weeye waa 6:15 ama 6:45 meelahaas aan u maleynayaa oo cadceedu wata hadda soo baxday oo harka waad aragtaan wadada ma marayaan baabuur badani baabuur baa maraya. shibrahan aad arkaysaana daroonta diyaaradda ayay isleeyihiin jiida ama baalka ku dhufta oo diyaarad yar oo kale moodayaan. dugsigan aynu hadda dul marayna waxa weeye waa dugsigii weynaa caanka ahaa ee Maxamuud Axmed Cali. waa dugsigii sare ee Maxamuud Axmed Cali. garoonkaas ku dhex yaala. halkan naga hooseysana waxa weeye xaruntii dabdabiska ayaa ku taala ee degmada Maxamuud Haybe. dugsiga laba wado ayaa dhinaca ka mara, mid xagga bari bay ka martaa midna xagga galbeed. wadinka arkaya baabuurtii u socday dhanka airportka. hadda waxaynu u sii soconaa dhanka airportka wata wadadu buurta sii fuulaysa. run ahaantii magaalada Hargeysa marka dusha laga duubo waxay tahay magaalo aad iyo aad u qurux badan oo qaabkeeda guud waa qurux badan yahay. kaliya xagga hoose marka aad ku qabato gaar ahaan wadooyinka kale ayaa u baahan dib u hagaajin badan. inkastoo dawladda hoose ay samaysay wadooyin aad u tiro badan laakiin wadooyinka hadda dhiman waxa weeye wadooyinkii dhex marayay xaafadaha yaryar ee loo yaqaan subsidy-da ama degmooyinka ka sii madaxa ayaa wadooyinkoodii aana samaysnayn. laakiin wadooyinkii inta badan dhex marayay faras magaalaha iyo xaafadaha guud ee wadooyinka dhex mara waa la sameeyay. hadda gacantii bayna dul maraynaa. wadadu wataa buurta sii fuulaysa ama dalcadda la yiraahdo ceelgeeya la yiraahdo ay ka sii baxayso. halka xaafadda ka soo muuqatana waa xaafadii calaamada weeye. ilaa ay wadadu ay saa u sii soconayso oo la gaarayo madaarkii Hargeysa. dib baynu u soo laabanay oo waxaynu ka soo laabanay hadda xaggii koonfureed aynu soconay dhankii waqooyi baynu soo laabanay aynu soo jeesanay. waxaan u jeedinayaa hadda dhankaas iyo suuqa gaari mayno laakiin muuqaalka dambe ayaynu suuqa ku gaari doonaa oo suuqa waan idin tusi doonaa haddii la yiraahdo qayb kale. halkan aynu hadda u jeesanay waxa weeye xaafadii Jameecada ayaynu u jeesanay. xaafadii Jameecada iyo xaafadii Xidigta oo dhanka midig naga xigta ayaa xaggaas inooga soo muuqata. wadadan arkaysan waxa weeye waa wadadii soo noqoto dhanka suuqa tagaysa. guryahan buluuga ee hadda idin muuqda waxa buluug ka dhigtay cadceedii fallaaraha cadceeda ayaa casaan fara badan ka dhigtay. anna xoga yaro buluugan raaciyay oo kalarka sidaasaan u hagaajiyay. dugsigii baan dul maraynaa. xagga suuqii waxay nooga soo muuqda dhismayaashii suuqa. halka waxaa iga soo muuqda dhismihii weynaa theater mallkii dhakada casa halka damal baa ka soo muuqda. waa kan haddaba waxaan nimi waa muuqaal kale oo isna aan duubay isla maalintaasi waa gelinkii dambe
waxa weeye waa suuqii hoose Hargeysa. dhanka bidix ma aragtaan xagga waxaa ka cas waa ciida cas waa suuqii Waaheen oo la dhisayo. suuqii Waaheen waa u socdaa, muuqaal dhammaystiran baan idinka soo diyaarin doonaa haddii Rabbi ogolaado. kani waa suuqii hoose Hargeysa. hadda waxaynu dul maraynaa masaajidkii Calimataan area. masaajidka Calimataan baynu dul duulaynaa. dhanka bidix ee hore waxaa kasoo muuqda dooxii oo darkasan biyaha maraya. gelinka dambe maalintu waxay ahayd 5:00 galabnimo bay ahayd, waxaa daaya roob. unigan hadda dul maraynaa suuqii Waaheen oo isaguna ah suuqyadii halbowlaha ee Jamhuuriyadda Somaliland ee dhawaan gubtay, laakiin hadda waxa uu ku dhow yahay dhamaad buu ku dhow yahay. qaybtan casee la dhisay waxa weeye waa qaybtii dawladda hoose ay lahayd. hoos baa loo qoday, waxaan u maleynayaa in ma garanayo ma qayb hoose la sameynayo oo underground ma garan karo, laakiin waa la qoday cagaf dhex taagneed. marka waxa weeye magaaladu saas oo qurux badan tahay oo waa magaalo run ahaantii u baahan in horumarka halkaasi laga sii kordhiyo oo loo sameeyo barnaamijyo fara badan, miisaaniyad badan la geliyo. dawladuna ay ka qayb qaadato dhammaan kaabayaasha dhaqaale sida wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka isaga baxa, shaqo abuur la sameeyo. haddii wadanka sidaa wanaagga loogu sii wado wax badan ayaaynu qabsan karnaa. ta ugu muhiimsanna waxa weeye nabadda oo la ilaashado. muuqaalkan intaasaan kusoo gabagabeynayaa. like ku dhufo, commentigana la wadaag. saasiyo nabadgelyo fi amaan illah.